qodobkii labaad oo ah sawirka labada qof oo doonaysa in nolosha dhisaan ama ay guur galaan waxaa la doonayaa inta ay wada hadlayaan in qofba qof kale samirkiisa fiiriyo. samirku waa furaha guusha, waa waxyaabaha dadku kala hormaraan. xagga diintana way ammaanto waa ogtihiinoo waa nuur. samirku waa waxyaabaha dadka kala hormariya waay. qof meel gaaray haddaa aragto oo maqaam sare tegay samir buu ku gaaray. qof aan meel haysano hadda meel ku buuda haddaa aragtana samir la-aan baa jirta. sababtoo ah nolosha kulligeed waa mushkilad, adduunya imtixaan waay. samir haddaad lahayn waa ku dhex wareeraysaa. maraad xagga u boodo, maraad xagga u boodo, maraad mashaakil yar aad ka soo qaadato wax weyn oo aad ku mashquusho, iyo mar adduunku ciriiri kugu noqdo oo wax weyn aadan maaragtay ku sabri weyn. sababtoo aan waa la isku imtixaamaya adduunkan. mashaakil baad la kulmaysaa, geeri baa kugu dhacaysa, gaajaa kugu dhacaysa, cudurraa kugu dhacaya. intaas oo dhan samir bay u baahan yihiin. shareecaduna way ka hadashayoo samirka aad iyo aad buu maaragtay wax qiimo qalow yahay. dhinaca guurka hadda markaan ka hadlayno, labada qof oo raba inay nolodaan oo ay wada hadlaan oo guurka wada hadlaan, haddaysa isu samrin inta ay sheekada wadaan oo ay isku cusub yihiin markay guriga degaan samir ma imaanaya la ogaan. see la isugu sabrayaa marka? waxaa in lagu samro waxa adiga sharaftaada ama diintaada aan dhaawacayn ee qofkan kale kaa soo gaara waa inaad samir u leedahay ood ku samirtaa. sababtoo samirku waa furaha guusha nolosha. inta aad samirkaagu dhan yahay baa guushaadu dhanta. sababtoo waxaa lagu samrayana waxaa weeye wax adiga aadan sax khalad ah oo naftaadu ay dareemayso inaad ku samirtaa loo baahan. maaha inaad tiraahdo waxa aan khaldanayn baan ku samraya. waxaa ku samraysa waa inay yihiin wax adiga aan ku maaragtay ku dhibaya ama aan sax ku ahayn oo kugu kaagana imaanayo qofka aad doonayso nolosha inaad la wadaagtid ayaa loo baahan yahay. markii guriga aad tagtana samirku asaguna dee waaba khasabo in lasu samraa dee meesha waa ku jirtaa. samir la-aan reer ma dhaqmo. oday adeerkeed oo waayeel ahay waxaan xasuustaa ayaa wiil yaroo aan ilmo adeer ahayn oo saas gabar uu qabay ay kala tageen ayuu la dardaarmayay. marka waan yaraa waagaasoo runtii waxay ahayd dhowr iyo 17 sano iyo 18 sano ka hor. ma yarayna nin weyn baa, laakiin hadda intaan joogo ma joogin ayay ahayd. saan hadda waxa ugu fahmayna waaga ma fahamsanayn. wuu la sheekaystay oo wuxuu yidhi maamaha baa jirtay la yidhaahdo yidhi dumar ama u samir ama ka samir, ama u samiroo hadalkooda iyo dhibkooda u samir, ama ka samiroo hadda ka tag. ka samirkooda waa furiin. wiilkuu la hadlayay wuxuu ku yidhi ereyadu ku yidhi waxaa ka mid ah, wuxuu yidhi haddii gabadha aad qabto laba shay keliya aad ku haysato waxa kaloo dhan dhibaato male. labadaas shay keliya haddaad ku haysato wax kaloo dhiban jira. oo maxay yihiin? gabadhu inay awlaad dhalayso iyo inay ku maqlayso. inay dhalayso kuna maqlayso. haddaa labadaa ku haysatid wuxuu uma baahnid wax kaleeto oo gabadhaas la timid inaad ku samir weydo uma baahnid. laakiin labadaas bini aadanka way dhibaan buu yidhi. qofka hadduusan maqlayn oo wuxuu kala hadlayo uusan fahmayn, hasuusan taran lahayn buu yidhi oo waxba qofkii u dhalayn, waxaa laga yaaba qofki inuu ka samir waayo. laakiin khalaadka kale oo dhan oo gabadhu keensato wiilku wuxuu ku yidhi waa inaad ku samirtaa. aniga markii waa biciidsanay oo waxaan lahaa waxyaabo kale waxaa jira aan lagu samri karin oo dumarku la imaan karaan. laakiin markii waqtina ii kordhana aan sii akhriyay waxaan ogaaday odagaa waayeelka wuxuu ku hadlayay inay ahayn waayo aragnimo gaamirtay oo waqtigiisii uu soo joogay. sababtoo qofka haddii uu ku dhageysanayo oo waxa aad ku sheegaysaa ay maqlayso waa fahmi kartaa wixii khalad ugu. dee haddii la nool yahana waxaa loo isu guursaday kow waxaa waaye in taran yimaado awlaad dhalato. hadday iyaduna meesha ka maqan tahay xoogaa waxaa laga yaabaa in la istuumo xoogaa samirku inaad bini aadan baa leh. laakiin haddiiba awlaad jirto awlaaddu waxay kugu khasbaysaa inaad samirto. waxay kaloo kugu khasbaysaa inaad iyaga laftooda ku ilaashato oo culays kaga imaanaya gabadha aad ilmaha ku samirto. ereyada odagaas wiilku ku yidhi waxaa ka mid ahaa haddii aad ku samri weydo culayska iyo maxaan ku idhaahdaa khaladaad kaga imaanaya xaaskaaga ma ku samraysaa buu yidhi mushkiladda gaaraysa ilmahaaga markii aad ka tagto. marka labo yaa kuu siman buu yidhi inaad adiga ku samirtid culayska iyo brobleemka xaaskaaga iyo in ilmaha ka samirtid. sababtoo waxa adiga ku samri wada ilmahaaga iyo dan u yihiin waxaad ku samirto. markaad samirto
ilmihii baad korsatay, xaaskaagii baad haysatay, samirkaasaana intaas kuu keenaya. laakiin markaad samri weydo xaaskii waad ka tegaysaa, ilmahaasna waa kaa tageen. saasuu odagu ku yidhi. marka talooyinkaas waagaas odagu bixinayay aad iyo aad bay macquul u ahaayeen. mar dambaan se ogaaday. waxaan kaloo rabaa inaan soo qaato maxamed cumar bin khadaab. waxay ahayd waqtigii cumar bin khadaab nin asxaabtiisii ka mid ah islaantiisii way dhibtay, aad bay u dhibtay. markuu seexan waayo soo tegay si uga dacwoodo cumar buu soo aaday. wuxuu u yimid marka cumar bin khadaab gurigiisii markuu la siman yahay iyo wuxuu maqlay xaaskii cumar bin khadaab oo cumar ku qaylinaysa, waa amiirulmu'miniina ayuu maqlay. markaasuu inta istaagay dhegaystay. markuu arkay in ay ku qaylinayso iska noqdo, wuxuu yidhi meesha u socotaa barnaamij ka jiraay isaga noqon. cumar baa dareemay shanqartiisii, markaasuu la hadlo waa kumuu yidhi wuu gartay, waa anigu yidhi maxaa saacaddan ku waday bin yaa amiirulmu'miniin waxay waday bu yidhi xoogaa culays baa xaaska xaggiisa iga yimid, xaaskaan raba inaan ka dacwoodo oo culays badan igu haysay, laakiin markaan ba adiga kugu imid oo arkay adigoo dee xaaskaagii culays intii anigu aan ka cabanayay kugu hayso ayaa iska noqday bi. cumar garabku qabta wuxuu yidhi waa inaan ku samirnaa culayska haweenka ay nagu hayaan, waa inaan ku samirnaa, leannahu 3 dab bay naga hayaan bi. 3 dab bay naga hayaan. shahwadu waa dab bi iyagaa naga haya, waa kow. caruurtu waa dab oo haweenkaa naga haya oo hal sac ma hayn kartid. hal cunug hadday hayso 12 maanta cunugaa hooyadu se u hayso adigu hal sac ma hayn kartid. ilmuhu waa dab oo iyagaa haya. dheriguna waa dabo jikay kugu jirtaa oo iyadaa ka haysa. marka wuxuu yidhi 3 dab qof dadka naga haya yaa ilaahay naga xijiyey, waa inaanu ku samirno yidhi. ninkii war damba lagama maqlin, waa saxab yidhi. gurigiisaba ku noqday, islaantiisiina waa adkaysta, uu sabro wuxuu yidhi walahi waxaad rabto raallah waxaad rabto sabir. marka sabirka ha la ogaado waa aad iyo aad u muhiim u yahay, waana waxyaabaha guryaha maanta kala hormariyey waaye. reerba reerku ka samir badan yahay, ama hooyadu ha sabirto ama aabbaha ha samree, noloshooda way raagtaa wayna dhisantaa. marka horena si wanaagsan bay u hagaagtaa. reerba reerku ka samir yaryahana waa ka burburi ogyahayo waa ka cimri yarya ha la ogaado. marka samirka hala laazimo si guryaheennu marka horena ay u fiicnaadaan, marka dambena ay noogu jiraan. tacaala inaan dib u kulmi doono casharka waxaan isu imaan doona. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.